wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay inuu dalka ka dilaacay xanuunka jadeecada isla markaasina ay u geeriyoodeen ilaa iyo hadda dad gaaraya 2 qof. Wasaaraddu waxay sheegtay in adeegayaasha caafimaadku ay la tacaalayeen sidii xanuunkaasi ay u xakameyn lahaayeen. Waxaana wasaaraddu sheegtay inuu ka dilaacay deegaanka Qorlugud ee degmada Buuhoodle. Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf oo ah madaxa xog ururinta iyo warbixinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Qorlugud ay xanuunka jadeecada ugu geeriyoodeen 2 qof. Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf oo maanta warbaahinta qaarkeed ay wax ka weydiiyeen arintani ayaa waxa uu yiri dalka cudurro ka jiraan هاو دمبس قرولوجد أو عاد ياد ميدي هو قاعد دقي رمتي وأبنه وسارة عافمات كنا معها حرمتهم لكن قابت عافمات وسارة كميتها رمتي وح ترى استراتيجي لجو جوابه يقول جواب حنونات الطلاعة ولجو هذا برشة وح كميدا برنامج يلا يلاحظوا outreach أما موبايل أمبلانسيدي وشوجة shaqada way socotaa laakiin runtii way jiraa xanuunku aad buu jiraayo wuxuu la xiriiraa abaaraha iyo dhibta dhacaysa ee ka dhalanaysa oo cudurrada ka dhasha abaaraha runtii jadeecadu aad ayay u jirtaa wadanka oo dhan way jirtaa laakiin ma aha wax faraha ka baxay waa waxay wasaaradda caafimaadku gacanta ku hayso oo lagu la tacaalayo daaweyn qofka ay ku dhacdo inta kale ana ku dhicina talaal baa la siiyo meel walba uu yaala Qorlugud haddaan soo noqdo runtii way jirtaa muddadii makabil iyo badba aaga ugu daran ee jadeecada laga soo yeeray ay ka mid tahay wasaaraddu way la socotaa maalin walba warka waa la soo diraa warbixinta maalin walba inoo timaada waa monitor garanaynaa waa eegaynaa talaalkiina uu yaal dawadiina way taalaa laakiin haddana waxa soo dhan kuma filla xanuunada dadkii leeyahay amba jadeecada ka dilaacaysa waa deegaanadaasi waxa iskugu yimid dadkii xooluhu ka farabaxeen amba abaartu xoog ugu dhacday waa وجنب هذا علمنا شغالة عفمات كجوب كستوي شوجا وأنا كل رجل إننا إن التدوينه هذا هري هبين بوشقيان فهمتي حالته وحالات قعنته وسارته كويسو لما إن هيدا هنجا عوية نجا عن قبطة وجنب هذا علمنا وسارة هنا هري هبين بهجن بوجرنا إن شاء الله وحي يجا كلمة برشلو كعودنا أنباء تبنيان أنباء دونيان تدق ضرور كريو ده تدق مو ده قاعدة وسارد ودلالة سيدة وحكر لنا هذا وحكر قبل الحين. خسارة محامي صار. والله لو مدتي مكود بيسبيش لبدي بلوده بيشن إما كنماطي إلا بيشكور سيقودي هذا لما قف أيه أردن تيجي عضا أجا قرولوجد قفير يقف وين بهاي فهمت وكور هاينا ترى أدو بدرنا حنون كبر عاي لكن حنون كذا عضو حكمتها سيدة ده حنوننا هدي عمو وحيلنا ده بكمبليكيشن كده تدخل من لقيت وجوه qofka ku dhacdana mar dambe kuma dhacdo iyada talaashada cudurka istalaalo way isaga wa talaal marka xanuunka kulli abaaraha iyo waxa ayaa sabab noqon kara waxa dadka marka ay abaar ku dhacdo nafaqo darro ay maraysa immunity-gi awoodda jirka hoos u dhacaysa marka difaaciyo dhanba hoos u dhacaya qof xoogan oo caafimaadkiisu fiican yahay waxa laga yaabaa complication-keedu yaraado marka ku dhacdo laakiin qofka tamar daran kulli sidoo ku kacaw adagta marka xanuun asiibo gaajo iyo dhibaato iyo tamar darro